waxaas ku kala dejinay maku aqaanin hooyada baan aqoon walaasha baan aqoon adeerkay iska daa xataa qof aan meel shishe soo kala xaqabtiyo yaa ka baraani aaway jacaylkii quruxda badnaa ay dadkan tusi jireen maxay hadda u beeninayaan 99% waa bug waxba kama jiro waxay dadku daawan jireen muuqaallo qurux badan oo jacayl miran ah markaasay ku riyoon jireen helaan qof sida u jecel qof sida u daryeelaya qof sida ugu naxariisanaya dadku idin marka ay daawanayaan waxay ku riyoon jireen in sida ay helaan qof ay wada noolaadaan laakiin bilo kadib waxaan aragnaa labadii qof ee jilayay jacaylka quruxda badan ee dareenka ka muuqatay ee naxariista lahayd in been ay ahayd qof kastana wuxuu soo fadhiisanayaa baraha bulshada isagoo ka sheekaynaya in noloshaasi ay bug ahayd in jacaylkaasi keliya kaamirada lagu jilaayay laakiin nolol kale ay jirtay ee ka duwan tan waxaan ku hayaa dad caan oo afka furtay ka sheekaynaya noloshaasi qariban waxaan isweydiiyaa aaway jacaylkii quruxda badnaa ay dadkan tusi jireen maxay hadda u beeninayaan muxuu u badan yahay furiinka dadka caanka ah maxaana sababay muuqaalkani gudihiisa ayaan kula wadaagi doonaa waxaa muuqaalka qaybta dambe kugu siin doonaa waano qof kasta ku socota oo raba in jacaylkiisa uu kusoo bandhigo baraha bulshada si fiican ayaan u wada naqaanaa lamaanaha Sumaya iyo Liicaato waa laba qof oo caan ah nolol wadaagay laakiin Sumaya maanta waxay banaanka keenaysaa dhanka madow ee xiriirkooda waxayna afkeeda soo marsiinaysaa waxaanan weligeen aanan ka filanaynin bal daawo muuqaalkan anigoo uur 7 bilooda oo xaamilo ah taad igu samaysay turki adigaba xasuusteeda lahaw okay war xitaa ina aniga ilmahaaga caloosha ku wado xataa taasad ii fiirin weyday aniga inaan xaamilo ahay oo xaalad kasta aan gali karo taasad xataa ii fiirin weyday markaasad isla sii quman tahay miya oo iila soo fadhiisana meelaha qaar Sumayoy xaaskayga waa Sumay xaaskayga waa xaaskaaga was oo xabaalaha lagugu dar aniga xaaskaaga ma ii hana i sheeganin anigu kuma sheegto waa kaafaana runna ku sheega ana kule waa kaafaana ha ii sheeganin aniga waxyaabihii hore dhan ee dhici jiray xataa macquul waaba iska badayn karaabo okay laakiin aniga oo xaamilo ah oo 50-50 ku jira oo noloshada xaaladda ogeyd ah ku sugnaa ninkii ma tihido saan arkay sameeyo ku dhaqmay aniga ninka anoo xaamilaa ah garab ku waayay oo saan arkay ila dhaqmay ma laga yaabo nolosheeda cimrigiisa inta ka dhiman war haddii la dhaho haddaad soo dul istaagtid bay naftu ku soo noqonaysa xataa kuma soo dul muuqaalada quruxda badnaa ee la soo bandhigi jiray waxaa ka dambeysay noloshani aan jacaylka ku dhisnayn dadku wax kastoo ay arkaan way rumaystaan waxayna u qaataan in dhab ay tahay laakiin daacaddii run ma ahan keliya waxa ay ka jilayeen kaamirada hortooda qof kastana qalbigiisa allaa og jacaylku ma ahan keliya in kaamirada wax laga jilo jacaylku ma ahan inta aan aragno jacaylka dhabta waa kan marka kaamirada aysan jirin ee privacyga wax qofka uu kula dhaqmo qofku wax uu kuu muujiyo daryeelka in naxariista uusan cidna tusayn ee uu kuu muujiyo kaasaa jacayl ah ee ma ahan ha u malaynin jacayl kan kaamirada horteeda qofku kaaga muujiyo tusaale saaxiibkaaga markuu isnaaba isla duubaysaan markuu kuu muujinayo dareenka zaa'idka ee naxariista badan ee daryeelka badan marka aydan muuqaal iska duubayn haddii aysan jirin ogo nolol bug ayaa meeshaasi ku jirta kana fogow baraha bulshada jacaylka lagu soo bandhigo waa feeg waxbana kama jiraan sababtuna waxa ay tahay waxaan ka xaqiijinaynaa afka Sumaya aan runa ku sheega صح 99% يس waa bug waxba kama jiro انترست wax ka jira ma lahan waxyaabaha ugu layaabka badan anigu arkaada waxay tahay mataqaanaa labada qof isku dhici karaan شوف يعني gabadhana dabeecad ay leedahay هذه dhaqankii rabtay samayn kartaa wiilkana dabeecad u leeyahay dhaqan kula samayn karaa هذه laakiin baraha bulshada furinka zaa'idkii la soo gelinayo hadda dadka qaar noloshiiba khayaali u arkeeno waxay ka dhigteen fuse صح anigu waxaan indhahayga ku soo arkay maalmadan Soomaaliya tagay indhahayga waxaan ku soo arkay laba qof oo isqabto ku heshiinaysa fiiska hoos u dhacay maxaan sameynaa jacaylkaasi inuu yahay jacayl interest ya labada qof ay isku haystaan kaliya labadaas qof ay isku doorteen dadka iska keen jeclaaday micnaha dadka labadeena jecel inaan isgursano soo dadkaasi aan u jilno kaliya waxaa la rumaynayaa riyada dadka daawanaya ee ma ahan inay rumeeyaan oo iyaga dareen ay isu qabaan inay isu guursadaan ma ahan hadalkana ila dhegeyso mar kale
maalmahan dambe waxaan aragnaa baraha bulshada aad in uu soo badanayo furinkii maxaase waa la isdhihi karaa wallaahi horta dhanka baraha bulshada haddii la dhaho sax weliba dadka saameynta leh weliba sida dadka saameynta leh horta baraha bulshada dhanka baraha bulshada haddaan ka hadlo aan runaa kuu sheegaa sax 99% yes waa bug waxba kama jiro interest wax ka jira ma lahan waxaan rabnaa inaan jawaab u helno muxuu u badan yahay furiinka dadka caanka ah jawaabtu way fududahay marba haddii qoyskaaga ama qofka aad jeceshaad la timaado baraha bulshada dadku waxay soo qori doonaan commenties fara badan commentigana waa idin saameyn doonaa qofkiina qof buu saameyn doonaa dadku waa idinka warqaadi doonaan marka xaafadaha la joogo ee la arko laba qof oo isjecel waa loo kala warqaadaa because dadku waa xaasidiin ma ogola in labadan qof ay sii wada noolaadaan qof kasta wuxuu ka maseeri karaa nolosha aad ku wada nooshihiin markaasay isku dayayaan inay idin kala fogeeyaan sidaas lamid dadka baraha bulshada jooga idinma ogola inaad wada noolaataan jacaylkaasi quruxda badan aad soo bandhigtaan waxay idin gaarsiinayaan heer kommentiyada ay idinku soo qoraan wax idinka idin dhibaya ama inay idin kala warqaadaan wax adiga aadan dareensanayn marka aad muuqaalka duubaysay ay kasoo dhex bixin karaan taasna haddii maalinta koowaad aad iska indhatirto maalinta labaad aad iska indhatirto maalinta saddexaad waad arkaysaa waan aqbalaysaa halkaas ay xiriirkiinu kusoo afjarmayaa waxaa jirtay nin caan ah hadda ma xasuusto magaciisa laakiin waxaa wareysanayay jshit podcast marka wuxuu leeyahay maxaa familkaaga aadan baraha bulshada u keenin wuxuu leeyahay haddii familkayga aan baraha bulshada keeno dadka ayaa ila qabayo miins dadka ayaa inhagaayo waxaan ku socon doonaa sida iyagu dhahaan waxaan u noolaan doonaa sida iyaga rabaan aniga amarkii iyo sida aan rabo inaan u noolaado ama qoyskayga u noolaadaan ma helayo halkaas waxaa ka baxaysa xorriyaddii wuxuuna leeyahay waa sababta aan weligay qoyskayga aan baraha bulshada u keenaynin waa caan waxaa ku xiran almost 5 million and he's a millionaire magac inaan qoraal ahaan idinkula wadaago waa dhici kartaa marka ninkaasi waxaa ka gartay hadalkiisa waxa ay tahay wax uu ka baqaanayo in qoyskiisa uu burburo taasuu diidan yahay ka waran adiga keliya ku daawanaya 100,000 familkaaga kama naxisid miyaa qofka aad jeceshahay hala imaanin baraha bulshada haddii aad iska jeclaataan qof baraha bulshada labadii noocaan ah arrimo famil ku saabsan ama arrimo idinku saabsan ha keenina baraha bulshada idinka idinku ekaato weligiina noloshiina ha ka samaynina lacag miins xiriirka idin dhex maraya dadka kusoo jiidanina jacaylkaad u samaynayso qofkana daryeelka aad daryeelaysid naxariistaad u naxariisanaysid ha ku raadinin views waxaad ka raadaysaa in qofkani aad dareensiiso inuu qaali kuu yahay in noloshadaad agdhigayso taasaa ka wanaagsan kaasaa ka dareen badan